الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحda heer qaran oo ay nagala joogaan xildhibaan Cabdikariin iyo gudoomiyaha hay'adda imtixaanaadka qaranka iyo madaxda gobolka oo hogaaminaya barasaabka gobolku, madaxda dhaqanka ee kala duwan ee reer Soomaaliland iyo reer Gabileyba, culimada reer Soomaaliland iyo reer Gabileyba, caaqilka aynu maanta runtii caleemasaarkiisa iyo caanashubkiisa Ilaahay nagu simay iyo dhammaan dadweynaha deegaanka iyo bahda saxaafadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waa goor gaaban, hadalkeed gaaban oo dee muddaa la fadhiyey. halkan anigu saddex qodob baan u arkaa inay ka muuqdaanoo mid waa duco, midna waa hambaliyo, midna waxa weeye waa wax ku qaadasho iyo ku dayasho. dadka qaarta saddexaad dardaaran bay ka dhigayeen, inaanu dardaaranka ma dhigayo. mid waa duco, waanu duceeynaa caaqilka, waanan hambalyeynaa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa mas-uuliyadda culus ee uu shalayba hayay. maanta shaabadun baa loogu dhufanayaa. shalayba mas-uuliyaddan iyo tu ka ballaadhan oonu ognahay oo laga markhaati furayba sheekh xasan uu hayay. waa nin xilkasa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey inuu dadkiisa u shaqeeyo oo isagu isdiro. hadday halgankii noqotay ilaa maanta shaqada uu hayo oo dee ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku simee, maanta shaabadun baa loogu dhufanaya. waxaanayna tusinaysa meeqaamkiisa iyo arrimaha uu ku jiriyo wanaagooda. dee waa taa ilaa iminka la socdo, ilaa iminka wafdigu waa kaa iska soo daba dhacaya. markaa taa waxaan leenahay ilaahay ha u kadbo, mas-uuliyaddana ilaahay ha ku sugo, ha ku asturo, waananu ku hambalyeynaa. qodobka labaad waxa weeye halkan oo kale waa la isku dardaaraa, laakiin aniga dardaaran iima muuqdo oo waxaanu iigu muuqan dee waxa weeye nidaamka halkan ka dhacay ee yaalla waa inaynu cashar ka baranno. beesha halkan inta geed hoostiis la tagtay ilaa waqti walba waayuu leeyahayoo waayaha iminka jiro waynu ogni. beesha inta geed hoostiis la tagtay soo tashatay ee tidhi yaa ina wadi karaya, ma dardaaran bay leedahay? dardaaran ma laha. waxa weeye beesha inta geedkaa hoos tagtay yaa ina wada karaya isweydiisay, yaa mas-uuliyaddeenna ka soo bixi karaya isweydiisay, ee weliba sheekh xasan ku qasbay ee soo xushay. lagu dardaari maayo sheekh xasan. waanu hambalyaynaynaa, waxaanad mudan tihiin in laydinkaga daydo runtii tusaalaha wanaagsan. waa qof mas-uuliyad umadeed qaadaya. qofka mas-uuliyadda umadeed qaadayaana waxaa loo baahayay inuu noqdo qof u cuntama. daawud runtii hadalkiisa waan la qabaa, guddoomiyahu waa waayo aragnimada. waxna waa waxa yaree shakhsigaa, waxna waa mas-uuliyadda ummadda. mas-uuliyadda ummadda qofka loo dhiibayo waa in la eego dee kabihiisa. waxaa la yidhi ninkaad kabaaga ka tolanayso kabihiisaa la eegaa. hadduu aad ku beylkii carruurtiisa cunaya aad tidhaahdo dee mag noo ururi, waa dhibaatooyinkayna haysta weeye. innagu dee hoosunbay wax la isugu sheegnaaye sidaa daawud baynu u baahanay in kor wax la isugu sheego. waana mas-uuliyadda ummadda ha laga fikiro oo cashar baa halkan ku sugan, waa in wax lagaga daydo. guud ahaan reexaad calina waa ku hambalyeynaayo dee xasan dabiidina saadiq baa la keenay, iyaduna waa tusaale kale weeye. markaa runtii arrimaha in wax lagaga daydo, meel wanaagsan baad runtii waddo wanaagsan baad haysaan. ilaahay ha idinku karaameeyo. saadiq iyo sheekh xasan soo xulistoodana cabdikariin baa ka sii horreeyey oo isagana aynu markhaati ka wada nahay inuu u cuntamay booskii loo diray dee. marka insha allahu tacaala waxa weeye waa dee laga gaban maayo runta. ummaddu ilaa go-aan marka la qaadanayo waxa weeye waa in ku dhac la yeesho. waxoogaa cuqaasha iyo siyaasaddiina way siro gashay oo intaasi horta waa in yaroo idinku soo luntay caaqile. intay xisbiyadii iyo dadkii hawshaa lahaa idinkala wareegayaan dee godobta iskaga samra. laakiin haddaad waddada saxda qaadataanna waa laydinku hambalyayn, haddii kalena dee waa saamaxnaakum weeye. markaa intaa xisbiyada raggan tartamaya dee xisbiyada ahayd inay soo xushaan. waa baylah raggii lahaa garan laayihiin oo mas-uuliyadda dee halkan saaxiibka ilaa iminka waxoogaa inkastoona jeclay inay halkan soo gaadho
وحوي وإل إذا صاد دونتي إسكجد القاطع إلهي سبحانه وتعالى مسؤولية ده هيدن كواسترو وايد همبلينا لكن وحوم بان مر والبيد الحسوسيننا وارو مدو عدة وحي وضلاء هاي أي أدرنا صو هاي سكشان دايصو تكان كاجا يرد وديبنا سقف تاريخ ذي قفك أيو هالكو كسوتش هذا أيو إما سمي هالوضع حل كسوق أيو ورئيس باد جلس ديجينا يمكتينا يحولها ومد عدة إنه ديبنا وحبيس كمو يديننا لابد تنامضا وأنا دبعتوين كتيرة مكان هايستا مركارنتي هذه أبان إدين هبلينا إدين كوبو قاعدينا وإحنا هلا جبرتها وحوي دحال كنيه هؤلاء رنتين تلاقى بحكم مسؤولية دومدين للسويدية كصوب حياة مهمة إلى هاي كوا أستر عاقل أنا جرب بور رنتين نوي هاي هديت هاي دقن كصوبان يوناك فريستا يا أمان كيهور مركز دينا والبا مركاتبان وكنا هينو قبل كرنتي كلا شقايو دقن كين رنتي إنه إلى شنو وحيالها أنشعلها إنه يصير حسوسينو واحد مودعين فرقلين فربضاني أي نقول صعطاء اللي بهاي اللي برارجو علماء ذي خاصة يدولة ذي ما لحد رقم كبار طاد باشلي لا دراد وضن كهيستي صدقوا جورجين أنت صدقوا جورجا إلى كذا ما يمكرت أيوه ما يمكرت وابرالك لين الأمر ياجا ما هو على السويدية وحرنتي آدية دقن كينيا ويركواوي مركاري ما هسيد وحيا راسي فضل لي نوجلي يعني نقولينه وحوي هاللجو برارك سنادو دقن كينيا هالكاس على لسي مريا بيله بدن باينوت على آدية أبان مر لوادي مر ستحال برنتي تدوينها ماذا شكا سو غيب جلسة فركو سو جلسة سو دويننا ونهم بلينا آدية أبو ما سنتي